يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. نبينا صلوات ربي والسلام عليه saddexda arrimood ee ibni aadamka halaaga oo halaagiisuna adduunyada ku ekayna aakhiriya adduunba halaago baabi'iya ayuu ku daray nabigu sallallahu alayhi wasallam hawan muttabac naf waxay jeceshahay oo haddana la raacsan yahay oo la daba socdo kursi bay rabtaaye oo jagay doonaysaay si ay u xaqiijiso jidkay ku martaba la raac dabagal shahway rabtaaye ilaa shahwadeeda ay gudato jid walba mar oo dabagal xoolay rabtaaye raac oo meeshay ka helaysaba u daba raac ilaahay sharcigiisa iyo waajibaadkii way dayacday ku raaco yeel waxay ku fartana yeel waxay ka reebtana yeel ayadu una ku taliso midaasuu nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inay tahay ashyaada saddexda ibni aadamka halaaga mid ka mid ah waxaad ku garanaysaa cid gaalnimo ku dhacday ma jirto jidka tawxiidka ka leexatay taariikh ilaa asalka waxaa sabab u ah doonida nafta waxay naftu rabto unbay ku raaceen nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa lagu yidhi rabbi ku leeyahay waxaad ku tidhaahdaa aniga waxaa la ii diiday oo alla ii diiday inaan caabudo waxaan alla kasakow aad caabudaysaan waxaan asnaamtan iyo waxaan ilaahay xaqiisii aad siiseen inaanan idinku raacin ilaahay baa ii amray mana idinla caabudayo sababtu maxay tahay qul laa attabicu ahwaa'akum waxuu naftiinnu doontay waay daliil iyo xujo aan lahayn mustanad aan lahayn naftiinnu waxay doontay uun idinku raaci maayo haddii naftiinnu waxay doontay aan iska dabagalana waan lumayba markaas dadka hanuunsanna ka mid ma ihi sidaa ku dhawaale ilaahay oo loo shariig yeelo jidka tawxiidka oo laga leexdo waxaa keenay naf baasaa rabtay xun oo xumaan doon ah ayaa damacday kadibna waa lagu raacay ilaahay tabaaraka wa tacaala sharcigiisa amarkiisa iyo nahyigiisa cid jabisay haddaad aragto inta badan waxay u badan tahay naftaa amartay haddaad aragtay dad ilaahay xuquuqdiisiiba ku xadgudbaya oo hawlo ayna lahayn gelaya shuruuc dejinahaya ilaahay xuquuqdiisii dhaqamo iska dejisanaya ilaahay sharcigiisa khilaafsan waa naftooda unbaa doontay mooyaane mustanad kaleeta ma laha nafta doonideeda haddii lagu raaco say rabtana la dabagalo xaqiiqadu waxay tahay rabbigeen siduu sheegayo tabaaraka wa tacaala oo xaqa aan lagu xakamaynin caqliga iyo sharciga aan lagu xakamaynin la iska dabageli lahaa oo xaquba say rabaan uu noqon lahaayo ku raaci lahaa alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala la fasadati samaawaatu wal-ardu waman fiihin samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba way fasaadi lahaayeen bal ataynaahum bidikrihim waxaanse u keennay buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala qur'aankan kariimka iyo dikriga asagaasaa raaciddiisa maslaxadu ku jirtaa nafti iyo hawadeeda raacideeduna waa fasaad samada iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba fasaadinaya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa rabbigii ku leeyahay fain lam yastajiibuu laka haddaynan ku yeelin waxaa ka horraysay waxayuu kitaabkii towreed ahaa iyo qur'aanka laga soo hadlayay labadaa kitaab
wax ka hanuun badan ii keena waan raaci ku dhawaalay labada kitaaba ilaahay soo dajiyay dariiqay jeexayaan wax dhaama hadaad haysaan keena waan idinku raaci kadib waxa la yiri fa illam yastajibu lak hadayna ku ajiibin oy keeni waayaan way wax dhaama tawreed iyo quraanka kariimka oy ku yeeli waayaan fa'lam annama yattabi'una ahwaa'ahum waxa meesha kuma hayaana marka naftooda baa u sheekays waxay naftoodu rabtay ba iska raaceen ayagoon ka baaraan degin ayagoon daliil iyo xujo fiirinin nafta ba iska yeeleen cidina kama baadinimo badna kamana lunsanaan badna cid naftiisu waxay rabto uu iska dabagalay cid ka lunsanaan badani ma ay jirto waxay naftani garo saaxiibkeed iyo qariinkeedu lamaanaheedu waa shaytaan nin naftiisa raacay oo hogaanka u dhiibtay waa nin shaytaan raacay in badan ba quraanka kariimka iyo sunnada nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi labadooda la isku lamaanin oo la leeyahay iska jira waa acdaada ugu cadawsan ee ibni aadamku uu leeyahay waa shaytaanka iyo nafta kugu jirta hawa nafsi marka waa khatar waxaad u baahan tahay inaad u isticmaasho laba shay wixii naftu soo bandhigto ay ku sheegto laba miisaan saar miisaanka sharciga saar oo waxaad tiraahdaa nafay hawshan aad soo bandhigtay sharciga alle ma ogolyahay muxuu ka qabaa miisaan labaadna isticmaalo miisaanka hore aan ka ag fogeyn oo ilaahay markuu ibni aadamka nafta xumaan doonka ageliyay dhanka kale wuxuu ku rakibay aqli buu ku rakibay aqligana waxa loogu talagalay inuu xakameeyo naftan xumaanta dardaraysa ee aan maslaxa iyo dan aqoonin aqligu inuu xakameeyo loogu talagalay laakiin markaad aqligana meel dhigto sharcina aad ka gudubto ayada talada u dhiibato taayay mid laga hadlayo oo la tilmaamayo markaasi waxa weeye waxaad noqonaysaa adoon aan rabbigi tabaaraka wa tacaala ilaah ka dhiganin balse naftiisa ilaah ka dhigtay markaad siiso talada oo dhan gacanteeda geliso oo tiraahdo waxaad iigu talisaan diyaar u ah oo tiraahdo balwadaydan daacad u ah oo meeshay ku gelisaba aad madaxa ku diirto oo maalintay dadka Allah ku tiraahdo aad layso oo maalintaad zinaysa ay ku tiraahdo aad zinaysato oo maalintay waajibaadka iyo faraa'ida dayac ku tiraahdo aad dayacdo oo maalintay waxad ku tiraahdo aad xaddo oo iyada aad daba gasho shaki wuxuusan ku jirin ilaahagi aad caabudaysay sidaas quraanka kariimka baa rabbi ku tilmaamaya bal ka warrama buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala cidda ka dhigatay ilaahu caabudahayba hawadiisa ka dhigtay naftiisu waxay rabtay buuba ka dhigtay ilaahu caabudo oo kadibna rabbi tabaaraka wa tacaala uu meel walba ka xidhay ilaahay baa lumiyay ala cilmin dhagaha iyo indhaha iyo qalbigana waa ka xidhay laana hadad hawadaada raacdo sharciga ka leexato ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu ciqaabayaa dhegtaada iyo ishaada iyo qalbigaagu waxaan hawada ahayn inaysan gelin isha aad wax ku arkayso waxay naftaadu rabtay dhegtaadu waxay maqlayso waa waxay naftaadu rabtay waxa qalbigaaga iyo aqligaaga geli kareetad fahmi karto waa waxay naftaadu rabtay laakiin wax kale kuma badhadhamayaba wixii kale oo dhan oo khayr aha waa laga qufulaya waa laga xidhaya laana wax weeyaan adiga halka isdhigay maslaxadaada iyo dantaadu marka waxay ku jirtaa in naftaada aad iska celiso oo naftaada isu dhiibin oo hawadeeda iyo doonitaankeeda wax badan aad ku diido oo aad kala shaandhayso waxay soo bandhigto oo ayada aad xakamayso oo ka adkaato oo aad laylido sida nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mujaahid waxa la yiraahdaa ruuxa naftiisa ilaahay dartii ula jihaada waxay keento maya waxay diido gali wixii khayr diidanta khayr kama ogole ku qasab wixii shar iyo xumaan ee Allah uu san ogoleen sharcigu diiday
ee ay kuu hogaaminayso maya dheh nafku ogol ha noqoto naf kuu hoggaansan ha noqoto laakiin naf kuu taliso ilaahay isaga kaa dhigtayaysan noqonin amarkiiyo nahyiga ku siisa laakiin ha noqoto naf maslaxadaada iyo dantaada meeshii ay ku jirtana adigu aad mariso meeshii ayna dani ku jirinna aad ka celiso ilaahay la kaasho tabaaraka wa tacaala waa caniida way madax adag tahay mana sahlana saas daraaddeed buu nebigu sal alay wasalam dagaalka lala gelaya ka cabiray jihaad ka cabiray hawsheedu ma sahlana laakiin rabbigaa la kaasho tabaaraka wa tacaala juhdi iyo dadaal la imow maxaa yeelay rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducooyinkiisii baa waxaa ka mid ahaa alla waxaan magankaaga ahay nafta sharkeeda iyo shaytaanka sharkiisa iyo dabinkiisa ducooyinkiisii baa waxaa ka mid ahaa allow naftayda alla ka cabsigeeda sii daahiri adiga unbaa daahiriye adiga unbaa daahirin kara ilaahu nafta ii daahiri ilaahay la kaasho tabaaraka wa tacaala juhdi iyo dadaalla la imow rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa kaa qabanaya waana kaaga hiilinaya laakiin ha isku sii daynin haddaad isku sii dayso maxaa dhacaya waxaa dhacaya adduun iyo aakhira waad khasaaraysa adduunka waxay ku gelinaysaa badweyn aadan ka bixi karin god waxay kugu ridaysaa aadan ka soo bixi karin masaalixdaadii adduunyo dhan bay burburinaysaa waxa aad arkaysaan ee dariiqyada yaalla ee daroogadu baabi'isay ee qaadka iyo khamradu dishay ee xashiishadu baabi'isay halkaa waxaa la galay naftooda la gashay hawan nafsi baa halkaa la galay in badan oo adduunka say uun riwaayad beena ugu jireen kursigu u maaweelinayay adduunyada iyo nicamkeeda iyo barwaaqadeedu u maaweelinayay u koolkoolinayay markii dambana ayaga oo yacni sarqaansan si fudud loo qabtay waxaa halkaa gaadhsiiyo adduunkooda iyo aakhiradoodaba baabi'iyey waa hawa nafs in badan oo bidaca iyo khuraafaadka iyo shirkiyaadka dabaalanaya oo diin ay u noqotay wixii diintaba lagaga baxay oy sunno u noqotay wixii sunnadaba khilaafsanaa halkaa waxaa geliyay hawa nafs naf iyo xumaanteed iyo doonitaankeed baa halkaa la galay shar oo dhan wuxuu ku jiraa inaad naftaada ku raacdo waxay rabto khayr oo dhanna wuxuu ku jiraa inaad khilaafto sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala intaas oo makhluuqaadkiisa ka mida intuu ku dhaartay oo intaasoo dhaarood isdaba dhigay waa qur'aanka dhaaraha ugu dheer ee isdaba yaalla ee ku yimid weye qur-aanka dhexdiisa hal meel ku soo arooray intuu ilaahay isdaba dhigay tabaaraka wa tacaala baa wuxuu yidhi qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha waxaa liibaanay xaqiiqo ahaan ruuxii nafta daahiriyoo ka shaqeeyaoo hagaajiya waxaana khasaaray adduuniya aakharaba oo balaaya ku dhacday ciddii wasakheeyoo halleeyoo aaso oo hagaajin waaya marka liibaantaaduna halkaasay ku jirtaa khasaarana halkaasuu ku jiraa iska qabo rabbigeenna tabaaraka wa tacaala jannada gelitaankeeda laba qodob buu u sheegay qodobka koobaadi waxa weeye inaad alla hor istaaggiisa ka baqayso ku tala gashan tahay rabbigaa baad hortegi doontaa kadibna diyaargarowgeeda la timaado qodobka labaadna waxa weeye naftaadu waxay rabto inaad u diiddo maxaa yeelay naftaadu waxay rabto haddaad u dayso oo shahwadeeda u dayso xayndaabkii naartay kula dardari naftaadu waxay doonayso haddaad ka celisana xayndaabkii iyo derbigii jannadaad marinoo jannadaysaa ku geli nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi macnaha sheegaya oo jannadana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu neceb tahay naartana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu jeceshahay ama ku siidaan naarta ha gashee ama ka celiyo waxay necabtahay khayrka ah ku xambaar si ay jannada u gasho وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم سيدوك لو حليه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نفتي سبخيل لماذا هذا حمان هذا روحي إلهي كإلاليو كقبته والليباني كاس أمبا الليباني بأل الله تبارك وتعالى نفتنا لقن حمد هذا أخلاق حمد هذا إرادة حمد هذا
xumaanteeda ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu inaga ilaaliyo baa waxay tahay arrinka liibaanteenna adduun iyo aakharaba ay ku jirto. arrinkaasi marka waxay u baahan tahay inaan juhdigeeda iyo dadaalkeeda la nimaadno. waana shaqo adag, waa shaqo aan sahlanayn. qur-aanka kariimku siduu tilmaamayo markii laga shaqeeyo naftani sax way madax adag tahay, wayna dhib badan tahay, mana sahlanoo durba hoggaanka kuu dhiiban mayso. laakiin in la hoggaamiyo laga adkaadaana wax mustaxiila maaha, waa wax dadaal kadib la gaadhi karo. saas daraaddeed baa qur-aanka kariimka ah nufuusta 3 qaybood buu ka dhigay. naf